يدورنا doorashada kaambiga u galay maalintii saddexaad isla markaana uu leeyahay xisbiga mucaaradka ay wadani ayaa uu soo bandhigay cudurda taageeray uu ku leeyahay degmada Garada iyo taageerayaal tiro badan oo ka soo jeeday xisbigaasi ay sharciyada degmada Garada ku mariyeen socod luga isla markaana ruuxayay calanka astaanta waa xisbiga isla markaana ay wateen gaadi tiro badan iyagoo ku dhawaaqayay iyo halkudhigii ay ku amaanayaan xisbiga iyagoo dadweynahan markii dambe iskugu soo biyashubtay geedka nabadda ay ku caan ka tahay degmada Garada halkaas oo qodbada wax ku oo ay uga soo jeediyeen mas'uuliyiinta heer degmada xisbiga mucaaradka ay wadani waayeel iyo wax garad dhalinyaro haween iyaga dhamaantood mas'uuliyiinta ka hadlay halkaas ay ku nuuxnuuxsadeen ahmiyadda ay leeyihiin taageerayaashan xisbiga mucaaradka ay wadani waxayna dhaheen sida tan iyo wixii la mid ah waxbarashada dhamaanteed ilaha asaasiga ee base minister loo yaqaano Garada waxa weeyaan degmooyinka ugu hooseeya taas waxaan kaga bedeli doonaa codkeena nisbada ku samayn doonaa dagaal baynu galaynaa codkeena inaynu xisbiga wadani sino soo diyaar weynin gawaadhi lagu soo gurayo lahaa kaalaya noo ololeeya oo la lahaa waxaan idinka goynaynaa haddaan noo ololeyn weydaan haddaanu nahay kulmiye garaamka yar ee qaadataan oo gawaadhi lagu gurayo arkay waxaan kaloo halkan idinka sheegayaa madax dhaqameedka degmada Garada oo ku meelmay siyaasiyiintii salaanka bacd halkan maanta waxaanu nimi inaanu muujino taageerada aanu hayno xisbiga wadani boqolkiiba boqol baynu muujinay waxaynu markaanu muujinay waxaynu leenahay codkana inaynu ugu ridayno soo ugu ridimayno cabdiraxmaan Erdo waxba ku sii fogaan maayo taageero ugu miisaan leh oo ay ka degmada Garada dadkii ilaalka oo dadkii Garada maanta Garada waa wadani waxay ka tastaayeeda waxaan nahay dhalinyaradii waxaanu ka tashanay ayaga waxaanu waasanaynaynaa xisbiga wadani iyo miisaan leh ugu codayno waa dhalinyaro dad waaweyn maaha waxaan u garanaya xisbiga kulmiyeenu tegayo kuraasidaan iyo xariir baanu fidinaya damaashaade ciidaa dowladda iyagoo guud ahaanba deegaanada hoostaga degmada Garada ay sidoo kale xisbiga mucaaradka ay wadani uu ku soo bandhigay cudurda taageero ku leeyahay isla markaana muujiyay awoodda iyo codka uu hayo xisbiga mucaaradka ay wadani iyagoo deegaanada hoostaga degmada Garada ay kamid ahaayeen kuwa ay saaka cudurda taageero ku soo bandhigay xisbiga mucaaradka ay wadani fadhiga in carrogowsa weyne baraguul gudheeli fadhiya balanbaal Garada oo madar sayre bulsha TV Garada.